waxaan oo wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow qaybta xigtaa ee sheekada ku saabsan xaaskayga jin bay ka ahaatay. qaybtii hore waxay noo joogtay markii xasan uu haweenaydii da-da ahayd uu la kulmay indha adeeg amba indha taagna uu kasoo haray. anteenna ayaa tarjumay, fawzi cabdi ayaa buugaani qoray, anigoo marcadda ayaa kula socodsiinaya. qaybta xigtaana waxay ku bilaabanaysaa haweenaydii duqda ahayd markii sidaasi ay ugu tiri oo la yaabka anay iga soo haray ayaa jawaab la iga sugaya. waxaan ugu jawaabay, xuduuddii magaalada qoraxda waaba laga soo gudbiyay, maxaa kugu kallifay meel xuduudda ka baxsan inaad waxaanaad igu weydiiso? waayo gudaha magaalada waxaa jira gabdho badan oo kun jeer aniga iga qurux badan, marka halkaasi wax fursada kuma aanan haysan, balse halkan dabcan fursad ayaan ku haystaa. laakiin kama aadan fikirin miya in magaalada xuduuddeeda aan kasoo tallaabnay oo ay qawaaniinta magaalada aysan i qaban karin haatan? waan ogahay, waxaan doonaya inaan kugu qanciyo sida aad ii guursan lahayd, kadibna rabitaankaada xorta aad iigu ogolaatid. waxaana markaasi aan kaa iibinayaa sharsharitaa si ay iigu siiso quruxdii ay iga siibatay iiguna soo celiso. oo ma dharka sharsharitaa ayaa quruxdaada kuu soo celin karaya? sidoo kalena da-dii kaa tagtay miyuu kuu soo celin karayaa? dabcan haa, ogowna in badan dadka deegaanka in ay xiran yihiin dharka sharsharitaa. i rumayso, haddii magaalada aan kugula kulmi lahaa ma diidi lahayn guurkaada. yaa quruxdaada iska difaaci karaya oo dhaldhalaalkaada iyo iftiinka soo baxaya islaan yahay cajuusada ah? haddii sidaasay tahay xuduudda magaalada nagama fogee, ila soo laabo oo i guurso. intaasi kadib haweenayda duqda ah hadalkeeda dhegba jalaq uma aanan siinine, keliya waxaan gudagalay inaan geedka aan ku sugo shiireen. waa intaasi oo ay ii timaadaaye, maadaama aan xuduudda magaaladii qoraxda ka soo baxay, halkaas inaan ku sugo ayaan iska go-aansaday oo haweenaydaasi duqda aan iskala joogo ayadoo ii sheekaynaysay. waxaana iiga sheekaysay waxyaabo badan oo nolosheeda ku saabsan. markii muddo aan wada fadhinay geedkii ayaa waxaa dhacday in qoraxda ayna qabatay oo hooskii oo dhan uu dhanka kale u wareegay. duqdii ayaana markaasi geedkii ka kacday oo mid kale dhankiisii ayay aaday. cabaar markii ay socotayna way fadhiisatay, halkaas ayana dhammaanteenna wada fadhiisasay. weliba sheeko dheer ayay ii gashay xilli aan anigana shiiriin ku suganayay. kadibna waxay bilowday sheeko ah inay iiga sheekaysa iyada iyo foolxumada ay leedahay. kadibna haweenaydii ayaa waxa ay tiri, aad ayaad adiga u foolxun tahay, haddana sidaas oo ay tahay guurkaada ma diidayo. kadibna waxaan ugu jawaabay, adigana aad ayaad u qurux badan tahay, nasiib xumana magaalada ma aanan kugula kulmin. maxaad ka qabtaa inaad guurkayga aad ogolaatid, anigana aan ku siiya wax walba oo aad iga dalbatid isla hadda? ayay i weydiisay. kadib ayaan ku iri, waan ogolaanayaa guurkaada haddii aad haataan aan musqul iyo biyo qabow leh iyo cunto dufan leh aad ii keentid. sidii ayaan kula kaftamay, anigoo og inaysan ii keeni karaynin. sidoo kalena waxaan ogaa in xeerkaasi uusan i qabanaynin maadaama aan ku sugnayn xuduuddii magaalada qoraxda meel ka mid ah. markaas ayaa waxay tiri, maya, tani waa ay badan tahay, waxaan awoodo iga dalbo, ayay iigu jawaabtay haweenaydii. waan aqbalayaa guurkaaga haddii aad ii keento koob cabitaan oo liin ah, ayaan kadibna iri. markii sidaasi aan iri ayaa waxay iiga naxsatay, waxaad dalbatay ayaad leedahay ninkaygiiow. kadibna waxay gudagashay inay gacanteeda kor ay u qaado ayna ku soo celiso wixii aan ka dalbaday ee cabitaanka liinta qabow ahaa, sidii in ay qof kaleento ay ka dalbanayso inuu ii keeno. kadibna waxay tiri, sabar ninkayga daqiiqada kadibna waad heli doontaa cabitaanka liinta ee. markaasi kadibna haweenaydii da-da ahayd ayaan waxaan arkay inay wax walba ay dhab ka yihiin. kadibna waxaan joojiyey kaftankii ayan iyada la kaftamayay. waan ka xumahay inaan kaa tago, balse waan ku qasbanahay midaasi ee macsalaamo. kuma ogolaanaya inaad iga tagta ninkayga. xabiibi arag, waa kana waan kuu keenay galaaskii cabitaanka ahaa ee qabooba. waan yaabay markii aan arkay duqdii oo koobka liinta ahaa ii wado oo aanan garanaynin halka ay ka keenta ayadoo leh, caafimaadku cab xabiibi. ma dhici karto midaasi, sidee suurtagal ay ku tahay in aad qaab khiyaano aad igu guursato meel ka baxsan xuduudda magaalada qoraxda? kuma khiyaanin, waxba kuguma qasbin, sidoo kalena anigama kuma xadidin waxaad iga dalbatay, ee wax walba oo rabitaankaada xorta ayaad dalbatay. markii horena markii aan sheekaysanaynay waxaan fadhinay meel ka baxsan xuduudda magaalada, balse markaan hooska kale aan u wareegay ee aad geedkaani soo fadhiisatay kuma aanan qasbin, rabitaankaada ayaad igu soo raacday. ogowna in hooskan aan fadhino uu qayb ka yahay xuduudda magaalada qoraxda. heshiiska rabitaankaaga iyo rabitaankayga ayuu ku dhacay. hadalladaad ku hadashayna aniga afka kuma aanan gelinin. waan istaagay anigoo argagaxsan. waxaan fiiriyey halkii aan fadhiyay anigoo oo ogaaday inaan cabir 3 taaka ah aan ku dhex jiro xuduuddii magaalada qoraxda. markaas ayaa aniga oo weli aamini la waxaan ku iri, haddiiba guurka uu jiro
furiinna wuu jiraa ee waan ku faraya macsalaamo. idhegaysa ninkayga markasta oo hadalkayga aad maqashid waa marka ay kuu roon tahay kuna farxad gelinayso. haatan isoo raac, ogowna naagta inay xaqi u leedahay in ay ciqaabto ninkeeda hadduusan hadalkeeda maqlin. meelna kuma raacayo iyo haddii aad iqasbi kartid bal aan aragno. sidaas haddii ay tahay, haddii aadba awooddo in aad araggaaga iga fogayso, balse mayaan arkee. markii sidaasi igu tiri ayaan dhaqaaqay, anigana waxaan isku dayay inaan u hoggaansamin oo aanan raacin anigoo halkaygii ka dhaqaaqin. balse markii ay 10 mitir iga fogaatay ayaa waxaan hal mar aan dareemay inuu naqaska igu dhagay oo meel neef aan ka helay igu adkaatay. si kastaa waan yeelay, balse neeftii waa iga soo bixi weysay, waxaana ka baqay in aan dhinto. markaas ayaan u hoggaansamay oo amarkeedii aan qaatay. markii aan u soo dhawaaday ayay neeftii igu soo noqotay oo aan hawo qaatay anigoo aad u yaaban. markii neeftii ay igu soo laabatayna haddana waxaan isku dayay inaan ka fogaado, balse mar kale ayuu naqaskii igu xirmay. waxaana sidaasi igu dhacday dhowr jeer anigoo markii dambe yaqiinsaday in qalaas ay tahay oo ii dhammaatay, sidaasna ay duqdaasi igu milkisay. markaas ayaa iyadii daba kacay, waxaana islahaa sharshariita ayay kuu geyn doontaa si ay kaaga iibiso, balse ima aysan geynin oo waxay geysay tuulo yar oo 100 guryo ay ku yaalaan. waxaan galnay mid ka mid a guryahaas. markii guryihii aan galnay ayay sariir meeshii taale igu soo tuurtay, waxaana ii gudagashay inay ii sharaxdo waxa ay jeceshahay iyo waxay necab tahay, halka anigana aan sugaya in ay guriga ay kor iiga xirto oo sharshariitaa dhankeedii ay u jehaysato, balse midaas ma aysan dhicin. waxay ii sheegtay wax walba oo iga mamnuuc ah oo ay ugu horreysay in gurigaasi aan ka baxo idin la-aanteed ah, ama in aan deriskeeda aan fiiriyo, haddii kale isha iga soo dhici doonto. waxayna iga ballan qaaday in ay abaalmarin ay siin doonto haddii sidaasi ay tahay ama sida ay wax walba ay yihiin aan u addeeco. kadibna waxay tiri, xabiibi, waxaan doonayaa inaad i ammaanto ee dhaqso i ammaan, maadaama muddo aanan maqlin wax ammaan ah. waaba cajuuso waayeela oo ammaan iga sugaysa, oo xaggeen uga keenaa erayadii aan ku ammaani lahaa foolxumadeeda. markaas ayaan waxaan ku jawaaba aan waayey, balse mawduucii ayaan u bedelay. markaas ayaan waxaan ku idhi, maxay tahay sababta aad gurigan ii keentay? maxaadan si degdega sharshariitaa iiga iibinin? waxay ila tahay in sharshariitaa ayna sugi karayso inta bisha malabka aan dhammaysanayna, ayay jawaab iiga dhigtay. duqdii ayaa markaasi mar kale waxay iga dalbatay inaan ammaano, anigana yaab ayaan la hadli kari waayay, gaar ahaana bil malaba markii aan maqlay oo afkii gacanta ayaan saartay. balse mar kale ayaa haddana naqaskii ugu xirmay. cabaar kadibna juhdi badan ayay igeliso oo waa la isii daayay. waxaana igu tiri mar kale, haddii hadalkayga aan kugu soo celiyo oo aad i ammaani weyso, ogow dhibaatadan ayaad ku jiraysaa. aniga waddo kale ima aysan furneena in aan ammaano oo aan afkayga soo bixiyo erayo kala duwan. wax aanan ahayn ma aanan haynin. iyadoo xalkaas sidaasi uu yahay ayaa haddana waxay iga dalbatay in aan dhunkado. waaba habar cajuuse ah oo hal ilig aanan lahayn. afkii ayaa gacanta saaray, balse mar kale naqaskii ayaa igu dhagay. xalkana ima uusan furnayn oo aanan ahayn inaa iyada aan dhunkado. anigoo xaalkaasi ku dhex jira ayaa markii dambe waxaa ii soo bidhaantay rajadii aan sugaya. markaas ayaa si kadisa qolkii aniga iyo duqdii aan ku jirna waxaa ku soo gashay Shiriin oo aysan wejigeeda farxad ka muuqan. waxaana ii soo gashay aniga iyo duqdii oo meel wada fadhina oo sheeko dheerna dhex maraysay. markaasi kadibna naxdin iyo cabsi ayaan dareemay oo Shiriin ayaa iyadoo isoo eegaysa waxay ugu tiri, adduunkaani oo dhan cajuusadaani mooye oo daanyeerta ah, qof kale oo aad la waqti la qaadatid miyaad weyse xasanow? inta aanan hadlin duqdii ayaa hadashay oo waxay tiri, na indhahaaga iiga duuninkayga, iigana bax gurigayga, qandhaa foolxumo badane. balse Shiriin duqday juuq uma aysan dhihin oo waa iska indha tirtaye. aniga ayay mar kale ila hadashay oo waxay tiri, ma garanayo midda haatan adiga kuu masiiri lahayd, kaadantaa mise saariisa? war hooge, sidee bay daanyeertaani ay kuu duubsatay kaagana caqli badisay? markaas ayaan inta aan isku dayay nafna isgeliyo u jawaabay Shiriin, koob biyo liin qabow ah dartiis, waa qiimaha igu milkisay. Shiriin ayaa markaasi qosol la dhacday oo waxay igu tiri, koob liima ah dayba ay kugu heshay, qiimo badan ayay kugu heshay, waayo adiga xitaa koob faaruq ah in lagugu bixiyaa uma qalintid. fiicnaan lahayda haddii aan kugu dhex arki lahaa dhabta gabdhihii quruxda badnaa ee sharshariita ay soo dirsatay. markaas ayaan ugu yaraan waxaan dareemi lahaa inaad qof qurux badan aad dooratay. digniinteeda waa diiday ee ka xaaxaabahe, aniga waan kaa tegay, waxna kuuman qaba karayo.
Shiriin markii sidaas ay tiri oo iga sii jeesatay ayaan baryay inaysan iga tagin oo ay wax ila qabato xaalkan aysan uga fiirsan. Shiriin ayaase markaasi duqdii waxay ku tiri imise ayaad ku doonaysaa ninkan inaad ku heshid si aad iiga iibsatid. Markaas ayay tiri u maleyn maayo in uu ogolaanayo ka tagista xaaskiisa isla markaana uu raaco qof walxun. Markii sidaas ay tiri duqdii intay il aan wanaagsaneyn igu soo eegto hanjabaade u muuqato sidii inay leedahay cadaab daran ayaan ku marsiin doonaa haddii afkaada aad kala furto. Balse Shiriin oo fahantay arrintaas ayaa waxay tiri waan ogahay inuusan kaa tagi karaynin balse waan ku qasbi doonaa midaasi ee ninkan qiimihiisa ii sheeg. Sheeko dheer ayaa dhex martay labadooda. In cabaara markii halkaasi ay sheekay ka socotay oo Kontaniza ama Shiriin ay doonaysay inay halkaasi iga soo saarto ayaa sheekadii waxaa soo kala dhex galay xubno kalento kuwaas oo iyagana la sheegay inay ahaayeen kuwa aanan aniga arkaynin balse ay Shiriin ay arkaysay. Sheekadii dhex martayna waxaa ugu muhiimsanay sidii aniga la ii badbaadin lahaa. Kadibna haweeney lagu magacaabo Susan ayaa ay la hadashay Kontaniza waxaana ay weydiisay arrimo ay ka mid yihiin inta cimrigeeda ka dhiman sida ay ahaan doonto waayo qof tallaabo ka hormari karaya Kontaniza ayaanan jirin oo baqdin ayay ka qabeen. Laakiin haweeneydan cajuusada ah si ay quruxdeeda u hesho ayay wax walba u sameynaysay. Intaasi kadibna Shiriin oo walwal uu ku abuuray hadallada qaar ee lagu dhahayo intii sheekada ay socotay ayaa waxay tiri haddii aad rumaysan tahay khuraafaadka culumtii sixirka maxaad igu dadaali weyseen sidii aad u heli lahayd waayo adiga suusanadii weyneed ayaa tahay mana ahan helitaankiisa in dhib badan aad kala kulantid ee. Kontaniza inkastoo ay caaqilad ay tahay balse weli jaahil ayaad ka tahay culumtan ayaa loogu jawaabay. Kadibna Susan oo ah gabadha uusan arkaynin Xasan oo ay la sheekeysanaysa Kontaniza ayaa loogu baaqay inay isdejiso. Xitaa iyadana waxay u sheegtay inay ku daashay erayada khuraafaadka waa Shiriin haatan sidee ayaan ku hubsan karayaa inaad adiga aad awoodid caawinteeda ilaan waxaa macquul ah adigaba inaad tahay wahmi kale oo ka mid ah wahmiyada boqortooyadan ayaa lagu yiri. Markaas ayaa loo jawaabay oo waxa loo sheegay Kontaniza ima aadan soo gaarin adiga oo aan daraasaynin taariikhda magaalooyinkan sidoo kalena aad kala furfurtaan xal xiraalayaal badan waan hubaa sidoo kale in aad hore aad u ogaatay qofka aan ahay ee orod dhaqso hawshii aan kuu diray yeel waqtiina ha naga dhuminin ayaa lagu yiri. Markaas ayaa Susan waxaa la weydiiyay Xasan arrintiisa sidee baad doonaysaa inaad ka yeesho. Gacanteyda ayuu ku jirayaa muddada hawsha aad ku maqan tahay ayaa lagu yiri Kontaniza si aad u soo xasuusatid adiga inaad ikhtiyaar kala aadan lahayn oo aniga aanan ahayn. Kadibna hadalkii waxaa qaadatay Susan oo waxay tiri mowduucani waxaa jira waxyaabo badan oo laga qoray balse arrinta loo baahan yahay la iskuna raacsan ayaa waxay tahay in culumtaani ay qoreen Zaataa iyo Kaanaa si ay ula wareegaan adduunka basharka iyo midka jinnigaba hal jeer kuwaasoo waqtigooda caadi u wada xiriiri jiray islana noolaa. balse markii culumtaani ay soo saareen Zaataa iyo Kaanaa ayaa waxay sabab u noqdeen dagaalo ay burburiyeen dhammaan xadaaradihii hore. waxaa la sheegaa in basharka iyo jinnigaba markii hore ay gaashaanbuur ay noqdeen sidaas dagaalkana uu ku joogsaday iyadoo dagaalkaasi ay ku burburtay boqortooyadii Aksantos. culumtii sixirkana moolka dhulka loogu duugay. waxaa la sheegaa in culumtaasi aanan dib loo soo saari karin marka laga reebo in labada adduun dadka kala socda ay midoobaan. sidaas awood si aysan u arkin ama aysan u rumoobin ayaa waxaa la kala jaray labadii adduun waxaana la mamnuucay in sidii hore u wada noolaadaan una xiriiraan marka laga reebo goobtan aan joogno. tanina waa sheeko aan waa hore aan maqlay. halkaa hay noo joogto sheekada ku saabsan xaaskayga jin bay ka ahaatay. Anteena ayaa tarjumay qaybtan qayb tagta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.